Somaliland gobol xasidloon oo go'aansata kaga dhawaaqay Soomaaliya deegaan nidaam dawladeed oo dhammaystiran ka hana qaaday 30 sano ee ay gaarka u taagneed inkastoo aysan helin aqoonsi caalami ah haddana waxa ay leedahay maamul u gaar ah oo u taagan maamulida deegaanadaas horumarka Somaliland gaadhay waxa ugu weyn ee lagu qiimeeyaa waa hanaanka dimuqraadiyadda kaasoo dadka deegaanadaas ay xukunka cidda u qabanayso doortaan walow ay jiraan gaabisyo badan oo la xiriira sida looga dhabeeyo muddada xilhaynta madaxda golayaasha iyo asxaabta la doortaba sidoo kale waxaa su'aal dul taagan tahay hufnaanta habkan balse si guud Somaliland waxay ku naaloonaysaa in farta iyo sanduuqa la isku bedelay 20 sano ee ugu dambeeyay saddex madaxweyne ayaa ku yimid habka doorashada dadweynaha ee tooska ah balse midkoodna kuma guulaysan in waqtigii la doortay uu doorashada madaxweynaha ku qabto madaxweynaha imika jooga ayaana haysta fursad uu kaga leexdo diiwaanka raggii kaga horreeyay inkasta oo fafaalaha muuqda uusan sidaas u ekayn Somaliland sanadkii ugu dambeeyay waxaa taagnaa muran siyaasadeed oo la xiriira doorashooyinka soo aadan ee ururada iyo tan madaxweynaha sida ay qabaan xeerarka Somaliland xisbiyadu waxa ay jirayaan muddo ku siman 10 sano waana in la soo doortaa si ay u helaan ruqsad ay ku shaqeeyaan dhanka kale doorashada madaxtooyadu waa mid dastuuriya oo ah in 5 sano mar la doorto madaxweynaha marka la gaaro bisha December waxa dhamaanaya muddada xilhaynta madaxweyne Muuse Biixi waxa sidoo kale dhacaya ruqsadda saddexda xisbi ee kulmiye u cudiyo wadani waa laba doorasho oo soo aadan mana jirto xeer cad oo kala horreysiinaya sida ay dadka badanka ku doodayaan mucaaradku waxa ay qabaan in doorashada madaxtooyada la galo kadibna xukuumadda cusub ee dhalan doonta muddaysa qabashada ururada halka xukuumaddu ay qabto inaan doorashada madaxweynaha la qaban karin iyadoo aysan jirin ururo haysan ruqsad ee ay tartan ku galaan dhexdhexaadin socotay isbuucii la soo dhaafay ayaa u muuqatay inay burbur ku socoto kadib markii labada xisbi mucaarad ay sidaasi sheegeen odayaasha dhaqankuna waxa ay raaceen dhinaca mucaaradka oo hadalkoodu ay sheegeen in dhinaca muxaafidku ay u dabacsanaan waayeen haddii aan la helin xal dhexe oo labada dhinac isku keena heshiisna dhexdhiga waxay u badan tahay khilaafku sii taagnaado la isla gaaro iyadoo labada doorasho muddadii ka dhamaatay waana fafaalaha la saadaalin karo maxay mucaaradku u diidan yihiin doorasho ururo sida iska cad doorashada ururadu waa mid aysan hubanti u haysan in dadweynuhu codkooda ay siinayaan tiyo ay u dheertahay inay tirsanayaan in goor horeba xukuumaddu sii og tahay cidda ururkeedu xisbi noqonayo waa tan labaad ee xisbiyada wadani iyo cud oo Somaliland gudaheeda marka la joogo isku ardaca waxay aaminsan yihiin in doorashada madaxtooyada ee soo socota iyagu ay guulaysan doonaan marka la eego guuxa habbeeleedka dimuqraadiyadda ee ka jira halkan labadaas sababood ayaa ugu weyn dawladdu maxay iyadu u diidan tahay inay tartan la gasho madaxtinimo xisbiyada hadda jira waa laba sababood kow xisbiyada hadda jiro oo isku deegaana taasoo dadka bariga burco u dhaweynaysa inay codkooda mucaarad ku aadaan maadaama aysan saddexda xisbi ee hadda jira midna ka sharxanayn laba muddo kororsi dad badan ayaa qaba inaan sanadkan doorasho ka qabsoomayn Somaliland taasna ay wadada u xaaraysa muddo kororsi loo sameeyo hay'adaha dawladda ugu dambeyn si kastoo ay ahaataba Somaliland waxa ka jira guul xisbedel kaas oo dad badani aysan saadaalin ka bixin karin dhamaadkiisa sababtu waa nooca muranka siyaasiga oo ah mid noociisa isna horena u soo marin Somaliland xeerarka iyo shuruucdana isku si dhammaan dhinacyada siyaasaddu uma fasirayaan waxa weyn ee la hubase waa in dhammaan dhinacyada Somaliland ay dul taagan tahay maareynta marxalad siyaasadeed oo adag taasoo saameyn doonta mustaqbalka siyaasadeed ee dambe ee dhammaan hogaamiyaasha siyaasadda ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shariicada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda